mahadsanid gudoomiye gudoomiyaha soo dhageysateen warbixintii uu naga siiyay urkiisa iyo halka ay higsanayaan waxa khadar inay furan inaad su'aalo wixii aad haystaan soo deysaan oo su'aalihiina soo kortaan si dadweynuhu meesha joogay ay geliyoba ay uga faa'iideysan karaan dowladda hal su'aal horta ka bilow suuya inta gacanta taagaysa qofka gacanta taagaya kusoo dhow هذا بقى عاوز تحكم بالقضية. حزب كان EDS وحزب السمراء marka waxaan doonayay si fiican oo qaleeqa oo xal ina xisbiga yahay xaqiiqi oo qodam ay ku jiraan مثلا حزب u saabsan maxay ahayd qalab أيوة أصلي. waad mahadsanta horta markii ugu horreysay yaa horta urur jiili markuu soo baxo dee horta dad oo dhan wada dhibaateeya khusuusan ha ahaato dowladda waa urur bulshiya baa la yidhi waa urur uu ismaaciil cumar sameeyey baa la yidhi waa urur maaragtay rag ismaaciil yuusuf oo malaha wuxuu doonayaa in maaragtay wasiir laga dhigo ayaa la yidhi inkastoon dee mari maanta wasiirka jabuuti ishaarada uu qaato deed anigu halkaan joogo uma baahan تقول عليه يقول فلان يقول فلان اسماعيل عمر ابو سيسي هو يدعي لها عمر هنا كل كاسي سمرون تهوى حتوي جرتا إما تحول ذا تكامش برو كوجي ها إنه ما تحول ذا سمرون كل كاسي يفتي برشتي هو قبيل بروس هو ما تحول ذا قبيل بروس قبيل كوالينا horta marka waa ma waxaan nahay sidaan u dhaqmay horta waxa muhiimka ah waa sidaan u dhaqmayso ma huwa min kasta oo Soomaaliyeed qabiilo kala baxdaan wadanka sida loo sheegay afar baa jirta carab baa jirta mid kasta jirta meesha waxayaan dhaqankaaga iyo sida aad maartay horta ururku waa urur u furan dadka reer Jabuuti oo dhan laga hor joogsan kara dee anagu waxaan leenahay war wadankii dhibaataa ka jirta wadankiina in wax laga bedelo ayaan doonaynaa sidee baan wax u bedeli haddaan nidhaahno urur qabiilaan nahay ma garanaysaayo dee waxaan wadan ku diidannahay ayaan ku dhaqmaynaa kolkaa waa inaan maaragtay maxaan ku idhahdaa wixii aan diidanin deena ku dhaqna maaha kolkaasi maanta waan leeyahay horena waanu yidhi wadan maaragtay maxaan idhahdaa ururku maaha urur qabiil waa urur qaran weeye